Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waa gabar Itoobiyaan ah ee dalka Urdun u tagtay inay ka naqato jaariyad kana soo shaqaysata meeshaas. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqatay, subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa hore noola joogtana like noo saar asxaabtaadana u sii share garee. Waxa ay ku nooleed dalka Urdun waxa ay ahayd shaqaale waxay u shaqaynaysay gabar haysata 3 caruur ah ayay waxay u ahayd qadaamo ama shaqaale. Waxaa dhacday inay gabadhii ka soo dhacday dabaqii ay degnaayeen ama daarta labaad oo ay reerka degnaayeen ay ka soo dhacday sida inay tahay qof asaga isdilay oo asaga meesha ka soo tuuray. Booliska imaadeen gabadhii ayay meesha ka qaadeen oo loo maleynayay inay dhimatay laakiin ay naf ku sii dambayso. Waxaa la geeyay isbitaalkii oo baaritaan lagu sameeyay. Gabadhii markii la baaro waxaa la ogaaday in jajab badan oo jirkeedii ku imaaday ay jajabtay. Marka koomana way ku jirtaa oo qofkii qof hadlaaya ma ahan. Reerkii ay u shaqaynaysaa lagu laabtay ayagii markii wareys lagu sameeyeen gabadhii reerka waxay dhahday 3 cunug ninkay u dhashay ay kala tageen. Marka waxa ay ku dhahday gabadhan ayada dabaqa iska tuurtay stress ama culays ka soo wajahay ninkii 3 cunug ee u dhashay. Waxay leedahay ninkii 3 cunug aan u dhalay culays kaga imaaday ayay gabadhan isaga tuurtay meesha oo muddadan dambaba ay ka sheegaysay. Ninkan naagtan waa ay kala tageen 3 cunug ay soo dhaleen. Marka colaadii ninkii u haysay ayay waxay rabtaa in ninkii saas ay booliskii kugu dirto oo ninkii saas xabsi iyo xukun uusan lahayn oo u qaato. Ninkii loo wacay oo la hayay dambigana lagu soo oogay in gabadhan culays saareysay muddooyinkii ugu dambeeyay gabadhiina ay dabaqa iska tuurtay. Ninkii wuxuu dhahay aniga dabaqa ma tuurin culaysna mana saarin waligayna ma wicin gabadhaasna aqoon uma lihi. Waa ogola inay guriga caruurteeda ku nool yihiin ay ka shaqayso laakiin aqoon kale oo aan u leeyahay ma lahan oo yiri mana la xiriiro. Way aan ula xiriirina ma jirto dhaah. Haddii ay ilmahayga rabo hooyadodan kala xiriira marka wuxuu dhahay way hadda gabadhan aniga aan u dilo ma jirto. Marka wuxuu dhahay hal mid laga yaabaa oo wuxuu dhahay ilmaha hooyadood islaanta ay kala tageen inay ka dambeyso laga yaabaa hore sababtoo ah hadda ka hore mar safar gashay oo 3 maalmood ay ku maqneed gabadha shaqaalaha ah iyo 3 caruur ay guriga kor kaga soo tuureysay. Hore kaga xirtay ayagoona biil fiican aanan haysan oo raashin ku filan 3 maalin ka fikir guriga aan oolin oo hadii guriga koronto ay ka dhacdo qof badbaadiyahay aysan lahayn hadii dib u imaado hadii ayada ama ilmihii qof culays ku imaado iridka aysan ka bixi karin oo guriga ku soo ka tuureysay ay safar iska gashay. Marka wuxuu dhahay waxay soo wacday aniga hooyaday ay soo wacday arrinta u sheegtay hooyaday marka islaantii ku dhahday maxaa saas u sameysay maxay ilmaha guriga ugu xirtay hadaa bixisid ma ii sheegtid aniga guriga tagi lahaa ilmaha ku sii ogaan lahaa inta ka imaanaysid. Marka hooyaday canaanatay taas ayayna diiday oo waxay rabtaa in gabadhan ay maxaa la yiraahdaa aniga xaggayga ay ku soo jeediso si aniga booliskii aniga ay shaqano dhex marto. Booliskii marka arrintii shaki ay ka qaadeen ayayadii wiilka hooyadiisa ay wareysteen isla sida ay boolisku u sheegteen. Okay booliskii marka baaritaan fiican ma sii sameyn karaan oo gabadhii wali koomay ku jirto hadii ay wareysan lahaayeen. Waxay ku laabteen ereyadii marka ereyada ayagoo baaritaan wax ka sameynayaan nin meesha joogo wuxuu ku dhahay video idin haya oo videogan ina idin tuuraa rabaan. Video waxa waaye marka carabta qofka ka shaqeeyo kafiil waxa la yaqaanin wadan carbeed hada ku nooshaa waxa u baahan tahay qof kafiilka ah qof adiga mas'uulka ah si aad ugu noolaatid meesha. Marka ninkii muuqaalkii uu askartii u tuuray booliska ahayd wuxuu ka muuqato in gabadhan qasab meesha lagu keenay oo gabadhan guriga ugu shaqeyso kafiilka ka ah ee shaqaalaha u tahay iyo islaan kale ee gabadhii qasab meesha intay ku saaraan ay ka tuureen dabaqay muuqaal ninkii waxa la weydiiyay adiga yaa ku sii ogeysiiyay in meesha qof laga soo tuuri doono see kaamirada u sii diyaarisay. Ninkii wuxuu ku dhahay aniga meeshaan marayay marka wuxuu dhahay mana ka dheeri meeshaan oo intii aad deganahay qaylada waxa maqlo dhahay biyaanadan labaad ka dhaceyso marka kaamiradan si shito dhahay si dadkan waxa ay sameynayaan oo duubo waxa aanan maleysay inaan ka imaado oo saanta guriga gabadhan soo tuurtay. Video way qaateen
marka ay fiidiyowga qaateen gabadhii lagu laabtay ilmaha dhashay waxaa la dhahay fiidiyowgan maxaa ka leedahay fiidiyowgan maxaa ka leedahay marka la weydiiyay aragtay in cadeen lagu haayo laakiin gabadha kale wajigeeda aysan muuqanin ayada wajigeeda oo taas u muuqdo waxay bilowday inay dambiga qarato waxay dhahday waa run oo gabadhan aniga darbiga ka tuuray laakiin sababta ugu tuuraa waxay tahay dhahday in ninkan aniga aan kala tagnay waxay dhahday culays igu haayo dambigan hore oo in 3 maalmood ay reerkan ilmahan iyo gabadha guriga ku xirtay safar aadan way qaratay marka waxay tiri waxaan ka carooday in ninka hooyadiis wacdo ay u sheegto oo dan ninka haduu dacwo u soo oogo oo ayadana marqaati ay naqato ilmihii looga qaadi karo si aysan u dhicinin marka gabadhan aysan marqaati ugu naqanin gabadha waxaan ku dhahday adiga u tag booliska waxaan u soo sheegtaa ninkan in uu ku dhibay si uu hadii tii hore kale ay dacwad u geeyaan dacwadooda loo qaaday way u noqdaan dad isdifaacaya si ay sheekadu ugu ekaato in isdifaacayaan in warkii ay sheegaan la beensado maadaama dacwada looga horeeyay warkii hore aan sheegtana ka laabo oo maamada ku inkir aniga kuma dhihin dheh gabadhii waxay dhahday ma inkiraayay beenna ma sheegayay dhahday wixii aan dhahay waa saxay tiri wax jirana waa laakiin in nin islaameed aanan aqoonin weligiis aanan iga soo xiriirin aan waxba nolosheeda waxay tiri aan maalin kamid ah soo gelin inaan been ka sheego macquul ma ahan tiri war aan dhahayn inaan ka laabto macquul ma ahan gabadha markii waxay dhahday waxaan ku fikiray gabar saaxiibtay ah oo boolis ah in aan wacdo oo caawimad aan weydiiyo gabadhii aan wacay way timid waxaan dhahay gabadhan baqadin gali si warkii hore ay uga laabato ninkan ay u dacweyso oo ixraaj wax Allah uu ku sameeynayo kala gabadha u dhibayo ee wadanka ku noolaada adiga gabadhii booliiskeed waa ay cabsiisay sharcigii iyo wixii iyo dareeskeedii iyo sharcigeedii iyo wixii ku shaqeynaysa tuste inay gabartii cabsi gelisay isku dayday gabadhii Itoobiyaanka maasha Allah waxay ahayd gabadh adag waa la cabsin gelin waayo waxa la meeshana laga tuuraa ama ka laabo go'aankaada gabadhii waxay tiri ma ka laabahayo qofna ma ka been sheegay gabadha marka ayadoo qayrinaysa waxay ka tuuran meeshii gabadhii waa ay qaratay gabadhii adii muddo 2 bil ah ay kooma ku jirtay mukoomadii markay ka soo baxday oo dhaawaceedii xoog la daaweeyay booliska u tagay way wareysteen waxay dhahday isma tuurin oo reerkana ay tuuro oo dhibkaas igu haayeen gabadhaana markii hore waxay dhahday aan u shaqeynayay culays igu haysay oo waa ku dhibana mana ka tagi karin oo waxay ahayd kafiilka wadanka aan ku joogo ayada ahayd marka gabadhii waa laga wareejiyay horta dacwadii intay socota waxa laga wareejiyay kafiilnimadii gabadhii u shaqeynaysa laga wareejiyay oo marka gabadhii ilmaha dhashay oo 3 cunug haysatay waxa lagu xukumay xabsi 5 sano ah gabadhii booliiska ahayd ee sharcigeedii ku cabsi geliday gabadhii shaqaalaha ahayd waxa lagu waxa lagu xukun looga dhigay 3 sano oo xabsi ah gabadhiina kafiilnimadii gabadhan kale oo haysay maadaama qof ayada dambiilaha aysan kafiil siiyaan karin waa laga qaaday kafiilnimadii gabadhiina shaqooyin kale iyo nolol kale ay meeshii ka samaysatay marka muuqaalkan intaanu ku soo gabagabowaa waxa kala bixi kartaa in hadii wadan shisheeye aad tagaysid si sharci ah ku tagtid qofna uusan kafiilka naqan ugu yaraan hadii kafiil aadan ka maarmaynin aad raadisid qof macquul ah laakiin inta yar culayska iyo baahida ay ku hayso hadii qof walbo oo ka hor imaada kafiil aad kaga dhigatid culaysyo badan oo tii ka cararaysa ah mid ka badan noloshaada ku soo siyaadi doono marka qofna baahida iyo culayska kuma raaga laakiin waxa fiican in weliga aadan go'aankaada aadan fudeed ku qaadanin ku dadaal waa ka baxay maalin laakiin ku dadaal meesh markii ay ka bixaysid meesha ay gelisid inay ku noqoto meel tii hore kaaga fiican aysan ku noqon meel tii hore kaaga daran muuqaalkeena maanta intaas ku soo koobayna hadii taa markii kugu horeysa aan soo booqto subscribe nasar gamalkan furo si video cusub ku soo garan hadaa hore nolol joogtan like nasar asxaabtada u sii share gareyn